السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين ملك استود دنود دافيد كجوكتان كسو دواد برامج كين أخبارات كأفلام تورك ودن بي برامج كين داوداش قيمها بدن وحا كسو قادن دونا دمان شركتها كردو وانتان كاسي دالك هندية دين نقوط بولود أم كونفور هندية دمان أخبارات كأوبانتين أيان كسو قادن دونا وركينا داوداش قيمها بدن تانو قدو قلين برامج كين مركو هورو كسو دواد channel كينا fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb daawadayaasha qiimaha badan aan ku bilaabno qodobkeena koowaad qodobada ugu kulkulul barnaamijkan ayaan ku bilaabina daawadayaasha qiimaha badan filimka Salaar hogaamiye ka yahay superstar lagu magacaabo Barbaas waxaa doorka negative-ka lagu magacaabo laadarka waxaa jiri doona ninka lagu magacaabo Manoj Bajpayee daawadayaasha qiimaha badan majaladaha kasoo baxa dalka Hindiya saakay dhankaas iyo koonfur Hindiya waxay qorayaan in filimkan door lagu dhigi doono laadar sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan marka waxa loo badinayaa filimkan qaybta negative role-ka inuu qaadan doono ay qaadan doonaan jilaasha kale John Abraham Murqani iyo Bollywood-ka inay lagu magacaabo Vijay Sethupathi oo dhankaas Tamil awood xooggan ku leh si kastaba noqotay daawadayaasha qiimaha badan waxay u badan tahay in filimkan lagu soo dari doono ninka lagu magacaabo Manoj Bajpayee inta badan Soomaalidu u yaqaanaan door daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Manoj Bajpayee uma noqonaysa markii ugu horreysay oo kasoo muuqan doono film laga leeyahay dhankaasi Telugu maxaa yeelay hore wuxuu uga soo muuqday aflaam laga leeyahay Telugu sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan daawadayaasha qiimaha badan filimkan lagu magacaabo Salaar waxaa director ka ninka lagu magacaabo Barshantan Nil waa ninka ku caan baxay filimka KGF labadiisa qaybood oo qaybta koowaad oo blockbuster noqotay 2018 sidoo kale qaybta labaad hadda way diyaarsan tahay sidoo kale wararka waxay ku darayaan daawadayaasha qiimaha badan in filimkan Salaar uu laba laab ka weyn yahay filimkiisa lagu magacaabo KGF sidoo kale filimkan Salaar waxa lagu qarash garan doona lacag gaaraysa 400 oo karoon miisaanad gaaraysa ayuu xambaarsan yahay daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale filimkan Salaar waxa atrisha koowaad ka atrishada lagu magacaabo Shruti Hassan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Salaar waxay u badan tahay in la daawan doono sanadka dambe 2022 qaasatan bisha Abriil ayuu badan tahay in la daawan doono sidoo kale warkan daawadayaasha qiimaha badan wali xaqiiqi ma Manoj Bajpayee in filimkan lagu soo diray laakiin inta badan majaladaha ka soo baxa dalka Hindiya ayaa qoraya laakiin wali maysan xaqiijin kooxda iskale filimkan laakiin waxay u badan tahay in mar dhow shaac laga qaado qofka negative role-ka jili doono isla qodobada daawadayaasha qiimaha badan iga muuqda Barbaas daawadayaasha qiimaha badan Barbaas iyo Kriti Sunan ayaa baqaadeen dogista filimkooda The Brush daawadayaasha qiimaha badan filimkan The Brush waxaa director ka ninka lagu magacaabo Omar Raoud sidoo kale filimkan dogistiisa waxay ka bilaabatay magaalada Mumbai xarun u tahay reer Bollywood-ka sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan The Brush waxaa qaybta negative role-ka ciyaari doona ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan sidoo kale filimkan waxaa ku xifaaltami doona isku hardin doonaan filimkan The Brush waxaa isku hardin doonaan jilayaasha kale ah Barbaas ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan ayaa ku hardimi doona markaana daawadayaasha qiimaha badan waxaan ciwaan iga haynaa mega starka ugu awooda badan fanka loo yaqaan Tollywood xaruntooda ay tahay Hyderabad qof kale ma ahan waa ninka lagu magacaabo Jaran Jeefi daawadayaasha qiimaha badan Jaran Jeefi wuxuu ku mashquulsan yahay dogista filimkiisa Ajariya sidoo kale filimkan waxaa kala soo muuqan doona oo door muhiim ah ku leh wiilkiisa Ram Jaran sidoo kale isla wiilkiisa Ram Jaran ayaa qarash gareynaya filimkan daawadayaasha qiimaha badan qodobka ugu weyn ninka maanta laga soo daawayo waxaa way daawadayaasha qiimaha jilaaga markii ku beegan tahay dhalashadiisa waa maalinta Axad 2 Agosto ay ku beegan tahay waxaa la sheegay in taageerayaashiisu ka farxin doono sidoo kale laba mashaariic waaweyn ayuu ku dhawaaqi doonaa daawadayaasha qiimaha badan ninkan fanka loo yaqaan ama Tollywood loo yaqaan xaruntooda ay tahay Hyderabad wuxuu ku leeyahay maqaam maamus weyn sidoo kale waxaa la rajayn doonaa ninkan markii dhalashadiisu ku beegan tahay laba mashaariic oo big project ah inuu ku dhawaaqi doono daawadayaasha qiimaha badan isku diyaariya goosgooska filimka lagu magacaabo Mastero daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Nathan sidoo kale waxaa kula jiraan labada gabdhood kala ah Nabaha Natish iyo Tamanna Bhatia daawadayaasha qiimaha badan filimkan Mastero goosgooskiisa waxaa la soo bandhigi doonaa bisha aan ku jirno 23 markay ku beegan tahay sidoo kale filimkan waxaa laga soo minguuri filimka Andadun uu sameeyay Ayushman Qurano oo dhoolaha ku matalayay sidoo kale filimkan daawadayaasha qiimaha badan waxaa lagu dhawaaqay in laga daawan doono OTT-ga sidoo kale filimkan waxaa gacanta ku dhigtay Disney Plus Host ayaa gacanta ku dhigtay sidoo kale filimkan goosgooskiisa waxaa la soo bandhigi doonaa bisha aan ku jirno 23 daawadayaasha qiimaha badan bal markaan aadna dhankaasi Bollywood-ka daawadayaasha qiimaha badan Saif Ali Khan wiilkiisa lagu magacaabo Ibrahim Ali Khan ayaa markaan assistant director ah wuxuu ka noqon doonaa filimku leeyahay Karan Johar oo filimka lagu magacaabo Rocky Awarani ki Prem Kahani ayuu assistant director ka noqon doonaa daawadayaasha qiimaha badan Saif Ali Khan wiilkiisa lagu magacaabo
Ibrahim Ali Khan uu diyaarsan sidoo kale waxaa la rajayn doonaa inuu mardhow soo gali doono Bollywoodka sidoo kale markaan wuxuu assistant director ka noqon doonaa filimka ay leedahay shirkadda Dharma Production sidoo kale uu madax u yahay Karan Johar daawadayaasha qiimaha badan ninkan Ibrahim Ali Khan oo gabadh walaashiisa lagu magacaabo Sara Ali Khan waxay ka mid tahay tirishooyinka Bollywoodka saldhigtay isla wararka daawadayaasha qiimaha badan Ibrahim Ali Khan aniga hayna waxa weeye wuxuu sameyn doonaa film laga daawan doono OTT-ga sidoo kale filimkaas waxaa director ka gabadh lagu magacaabo Zoya Akhtar sidoo kale filimkan daawadayaasha qiimaha badan Ibrahim Ali Khan waxaa kala soo muuqan doonaan Suhana Khan oo dhalay Shah Rukh Khan sidoo kale waxaa ku jirta Kushi Kapoor sidoo kale filimkan OTT ama online ahaan ayaa loo daawan doonaa waxaan laga daawan doonaa barta loo yaqaan Netflix daawadayaasha qiimaha badan jadwal xasaasi ah ka bilowda dhankaas Russia waana filimka Tiger 3 duwistiisa ayaa ka socoto daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa hogaamiyaal ka Salman Khan iyo Katrina Kaif sidoo kale waxaa door awood badan ku leh filimkan ninka loo magacaabo Imran Hashimi daawadayaasha qiimaha badan filimkan Tiger 3 duwistiisa sanadkan bilowgiisa ay bilaabatay jadwalada ugu muhiimsan dhankaas wax lagu duubo Mumbai sidoo kale kooxda filimka waxay ka ambaqaadi doonaan jadwalada kale dhankaas Ruushka ay jadwal xasaasi lagu duubi doonaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan jadwalka Ruushka markii la dhameeyo kooxda filimka waxay xiriirin doonaan dhankaas Turkiga iyo Austria ayaa lagu soo duubi doonaa jadwal kale oo muhiim daawadayaasha qiimaha badan filimkan Tiger waa taxano weyn sidoo kale dunida iyo daafaha caalamka aad ayaa loogu jecel yahay daawadayaasha qiimaha badan 9 sano ka hor filimkan Actor qaybtiisa koowaad lagu magacaabo Actor Tiger ayaa la imaadeen kooxda iskale filimkan waxaan la daawaday 2012 wuxuu dheeyay wacdaro weyn sidoo kale isla qayb labaad ayaa laga sameeyay waxaa la daawaday 2017 waxa lagu magacaabo qaybtiisa labaad Tiger Zindagahe sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa iskale shirkadda ugu awood badan fanka dhankaas iyo waana shirkadda ugu awood badan fanka Hindi waana shirkadda lagu magacaabo Yash Raj Films ayaa iska leh daawadayaasha qiimaha badan Yash Raj waxay go'aansatay qayb saddexaad in laga sameeyo filimkan waxaa lagu bixiyay Tiger 3 sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qaybta saddexaad hadda duwisteeda ayaa socoto sidoo kale waxaa la rajayn doonaa in sanadka dambe 2022 inay la imaan doonaan sidoo kale wuxuu ka mid yahay Tiger 3 filimada ugu waaweyn ee la sugi doono sanadka dambe daawadayaasha qiimaha badan waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeena sidoo kale waxaan taaganahay gabagabadii markaan daawadayaasha qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa Tuloyin History maanta oo kale aflaamo waaweyn ayaa la daawaday 20 Agoosto sanadkii 1999 waxaa soo baxay filimka caanka ah lagu magacaabo Arjun Bandit sidoo kale filimkan waxaa hogaamiyaal ka ahayeen Sanad Dowla Jahi Jawla Mukesh Rishi ay Soomaalidu u yaqaanaan Guri Dheere iyo ninka lagu magacaabo Yish ay Soomaalidu inta badan u yaqaanaan Indar lacagaha filimkan lagu kharash gareeyay waa 9.5 karoor lacagaha uu keeno 12 karoor natiijada filimkan wuxuu noqday filim Afrija isla maanta oo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa la daawaday filimka lagu magacaabo 20 Agoosto sanadkii 2004 waxaa la daawaday filimka caanka lagu magacaabo inta badan Soomaalidu ay jecel yihiin waa filimka lagu magacaabo Fiida filimkan waxaa hogaamiyaal ka ahayeen Shahid Kapoor Fardeen Khan iyo Kareena Kapoor lacagaha filimkan lagu kharash gareeyay waa 10 karoor lacagaha uu keenana waa 9 karoor natiijada filimkan wuxuu noqday flop ayuu waxaa halkaas inoo dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena wararka aflaamta ugu dambeeyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada barnaamijkan ku soo qaadan qodobka ku soo jiitay comment nagu reeb sidoo kale data markii kugu horeysay aad soo boqonayso channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar like waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan muuqaal qurux badan aan soo sameeyno sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin ka codsanaa in muuqaalkan aad share dhahdaan maxaa yeelay si saaxiibo wanaagsan inagoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale aragtidaada comment nagu reeb waxaa halkaas inagu dhan barnaamijkeena inta qoqolmeena barnaamij la mid ah waa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh